waxay ahayd maalin murugo iyo talo ah markii ururka al-shabaab meel fagaaraha oo lagu magacaabo maslax kuna taala duleedka magaalada muqdisho lug iyo gacan isdhaaf ah ay uga jireen wiilal dhalinyaro ah oo gaarayay ilaa iyo 4 kuwaasi oo shabaabku ay ku eedeeyeen inay ku kaceen falal burcadnimo ah. dhalinyaradan oo lagu kala magacaabo علي محمود علي ولو يقانو علي مدوبي عبد القادر علي دلحو اسماعيل قليب عبد الله iyo جيلاني محمد حاجي ayaa laba kamid ah waxaan kula kulanay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxaana ay inooga warbixinayaan xaalkooda sida uu hadda yahay iyo kolkii la qabanayay sida ay wax u dhaceen. labadan wiil waxay saaxiib ku yihiin nolosha adag ee ay la kulmeen. أنا علي محمود علي باللي هذا على سوقتي كود بشي لحد لبضكم يسقالك مقع يقولون هو عبد القادر عبد الحو رناتي واحد كان حافظ قبت اللي رادو waxay soo qabtay niman aan aqoonin oo indhaha iyo wajigu xiran yahay gurigii igu soo galeen anigoo carruurteyda la joogay ii yimideen marka xaafadda ka bakaaro habeenada kamid ah ayaan niman shabaab soo weerareen indhaha u xiran yihiin iyagoo markaas waxay u haystaan inay sii sheegin oo ay qabsadeen waxay ugu haysteen baari oo ii sheegi diideen wax markaasna ay ugu haystaan taariikh ma haystaa taariikhdan iyo xasuustan taariikhdan laakiin adiga markii gacanta laga goonayay bil camal may ka horeysan mise ilaa meeqa maalin oo dhaxays markii lagu qabanayay markii gacanta laga jaray 5 maalin oo dhaxays oo dhaxays okay markii adiga oo xabsiga laga baxsho oo la geenay maslax waqtigaas xaaskayga xaamile ahayd wiilna wuu ii joogay nimanka marka gurigaada joogtay markay ku soo weerarayeen guriga meel agtiisa aan joogo aniga asxaab dhalinyarada oo aan iskala sheekaysanay garta guriga igu soo galeen waxay ugu bilaabeen qaraati iyo hubkii ay wateen inay madaxa iga garaacaan xaaskaygu xaamilo ahna markaas way wateen anigana gacmaha iga xireen gaari bannaanka u iilay saarteen oo qori saaran yahay maxay kuu sheegeen wax ma kuu sheegeen waxay ii sheegeen malaaniga anigu bay qabsadeen indhaha ay iga xireen ba ay jirtiliyeen baawar ay soo saareen marka oo ay wateen iyagu markaas meesha ii wadaan iyo waxay igu haystaan inta baan kala sheegin waxay geeyeen meel la yiraahdo gaashaandhiga oo markaas ay xiro u ahayd weyn meeshii haddana abaar ku sii jirtiliyeen oo ugu weedaan jaajuus hata waxay dhahayaan ruuxa ismeeyay aniga micno iska dhalinyarada xaafadaanay waa iga diidan si meeshii ugu jirtiliyeen iyagu marka dambe indhaha haddana iga soo xiran gaariga soo saareen haddana xabsiga inta laga wadi wax ma lagu sheegay wax dambi lagu haysto maya wax dambi oo la ii sheegay ma jirin xabsiga dhexdiisa un baa waxaan ka maqlay in arrin mataqaanaa oo la yaab leh lagu samayn doono intaasna kama warhelin oo arrintaas maxay tahay saa dadka xabsiga igula jiro baa waxay lahaayeen mataqaanaa adinka waa mataqaanaa hawshiina askartaa noo sheegtay dhibaataa la idin keysan rabaa intaa un baa maqlaay laakiin dhibaatada ilaa xilligaas weli ma fahansanidin dhibaatada weli kuma fikirin dhibaatada hadda igu taalo intaan la eegin ay gaaraysa baawar igu qaadeen waxay geeyeen wasaaradda gaashaandhigga oo markaas xarun u ahayd xarun u ahayd markaas markay geeyeen kadib habeenkii aad baa lii dilay waxay yiraahdeen meesha
wadna annaga ku geyn doono kadib gaari bay isii meesha iga qaadeen wasaaradda gaashaandhigga waxay i geeyeen xabsi. okay xabsiga lagu gudbiyey marka waxaan ku markaa wallaahi ma garanayo oo baabuurka marka laga dejiyey xabsiga gudihiisa aan indhaha layga furay. xabsiga waxaan ku jiray ilaa iyo muddo 25 cisho ah. xabsiga baa muddo waxaa isaga jiray adiga 25 maalin xabsiga cunno la'aan u ahaa wax cuntaa ma lahayn adiga markii la ii soo wadaayay oo la ii soo wadaayay xerada maslax 3 maalin kan ratay wax ma la siin aniga waxba ma cunin dhibaato fara badan baa kala kulmay gaajo jirdil anigoo waqti walba oo katiinada lagu hayo gacmaha iga xirnaayeen. muddo 25 cisho kadib waxaa dhalinyaradan loo kaxeeyey goobta ay sida xaqdarrada ah lugahooda iyo gacmahooda ugu waayeen. kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay inay xabsiga iga bixiyaan aniga 3 dhalinyaro ah baawar ayayna saareen way inoo wadeen iyagu markaas meesha noo wadaxtay ma naqaan sida inoo wadeen waxaan keen xero maslax la yiraahdo suuq xalaqib kamid ku taalo xeradaas oo dadweyne fara badan ee dhowrnaayay markaas ayaga soo qasbeen meesha soo keeneen dadweyne yartooda ay markay geeskay ka fadhiyaan meel gees ay markaas fadhiyaan ay mikrofon iyo miis wax ku haystaan markaas meeshaan la soo istaajiyay aniga 3 dhalinyarada ahayd waa gartay halkaas baa mataqaanaa annagoo 3 dhalinyaro ah iyo aniga 4teennaba waxaa la ii sheegay in lugu gacan la iga jaraayo. meesha markii soo jaaxa dhacay in nin fashion gool yiraahdo oo noo sheegay in macnaha lagu la dhifanayo 30 karbaash muddo 40 daqiiqo markaa taagnin oo haddaan dhalinyaro meel loo gacan laga goynaya wadiin ma noo imaan miis halkaas oo kala fariistay ciidamo ayaa nagu hareersamay kadib mikrofon buu qabsaday 30 karbaash ugu dhufanayo noola sheegay marka hore haa ma ku qanacsantiin baa la yiri 3 karbaash haa mikrofon ka dhahayaa soo ma marka haa shacabka meesha jooga dhan way maqlaayeen. okay marka uu idin dhahayo 3 karbaash la idinku dhufanayaa muxuu idinku eedeynaa markaas wuxuu mataqaanaa markaa sheegaya in aanu tuugannahay marka 30 karbaash inaan ku qanacsantiin كل شخصيا أنا وحنا رايكم قناعسين. صدق كرباش مركي أديك واحد ترى ما أكون قناعسين. قناعسين. رأيك كل أصحاب هذا هنا. قاركود هيدا أنا دي حبسي أنا أقول علني وأكون قناعسين هاي اللي بعد حبسي يكون. كنت محاد عمرك مركي هذا غلطين. ملو كرباش مركي. ما يلي ما كرباش حكم كمية كدر ماشي كدعي. وإسلامك ماشي لو جاري. ها إسلام ماشي. مدة 4 دقيقة عبان تاجنين. isla goobtii baa waxa hadana lagu yiri mataqaanaa min lug iyo gacan isdhaafa ayaa la igu goynay adiga meeshii 4 daqiiqo dib markuu sidaas uu sheegay hadana waa in la soo celiyay iyadoo leeyahay qorraxda ayaa kulul xilligan xawlan ka jarmaayo ana leeyahay markaas xabsiga aan ugu soo celiyay 3 maalin ku jira anaga markaas ogaalku in lagu gacan kala goynaa markaas yaa idin sheegay in lagu gacan la goynaa ugu dambeyn oo idin xaqiijiyay marka maslaxada waxaan sheegay nimanka ururka al-shabaab meesha jooga kuwa madaxda u ahaa kamid ah fuad shaqo intaas anoo ka naxsan xabsigii 2 Ismaaciil iyo yar kala xabsi kale ku jiraan ani yar kula jeenaan leeyahay qol kala ku jira 2 qol isku dhigan kala jiraan markaas 3 maalin kadib dadana la soo baxshay xaradii hadda keenay hadana iyadoo dadweyne badan hadda sidii u dhoobayeen ay buuxaan gaari ayaan wada saarnayn oo noola soo wada qaaday 4teena walaalkan Ismaaciil Khaliif ay la degan waqti markii ay baxsadeen leedahay soo degay Ismaaciil awteen wixii seexiyay joodariga meelaan iga fogeyn baa mataqaanaa joodari yar oo yiila la jiifiyey anigoo markaas aansan Ismaaciil laga jaraayo jiribka iyo xusulka si iyagoo darab badan ay u jeednaa dadka sanaga midii wartaan indhaha waa xoriyiin qof laga ma aqoonsan karkii wadin indhaha wala xiran
adiga markii dambe ismaaciil lugtiisii gacantiisii meesha ku jaran ayaga anigu waan daawanaya ismaaciil wuxuu nasiib badnaa asiga cidna muusan daawan ismaaciil si arxan la'aan ah ayaa niman waaweyn midiye ugu jareen lugihiisa gacmihiisa idinkuna waa fiirsanaysiin haa indhihigan markaay kadib anigaa la ii yeeray meesha ismaaciil jiifiyey baa la ii jiifiyey dhiiggiisii baan u barkaday anigu waxay bay ila noqotay nimankan inay qali rabaan aniga saddexdoo kale markii loo gacmaa la goonaa u jeedo horta aniga saddexda wiil way ka horreeyeen way ka horreeyeen haa aniga ugu dambeeyay marka maxaad dareemaysa marka saaxiibada adigoo fiirsanaysid gacmaha laga jaray aad u naxtin badan waaye marka aniga kulley markaas dareenkayga soo ma qiyaasi karo aad u kacsanaa lugtii ismaaciil iyo meesha yaallabaa midiye la ila soo baxay halkaas baan ku waayay qaaliga ah saddexdii saaxiibada markii gacanta horta looga gooyey adigana adiga ku soo gaartay aniga soo gaartay kulley baan markii dambeysay waa lisoo waday waxaa la keenay joodargii aa la siixiyey joodargii saaxiibada lagu qalay ayagoo lugooday gacmooda ay meesha yaaliin adigana lagu seexiyey lugoodaa lee barkii meeshii markaa seexday adiga yar nin aa soo baxay muddi wato mudday gacantay markuu soo aadan dhaas ku qabsada aniga waa fiir waa saaxiib gacanta markaa laga jaray lugta ayaa laga jaray laani lugta laga warku muddi caada lagu jiraa muddada xoolaha lagu jiraa wax arxana meeshaas ma jirin waxa dhig joojin iyo wax oo dhig joojin iyo waxba nagu lagu darin waan wada qaylinay daawooyin baa codsanay waxaa noola sheegay ilaa suuqa uu ka furmileen daawooyin leelin suuqa inuu furman ay ka dhiman tahay biri iyo biri dambo maalinta sabtida ah ka sokay in goobaha daawooyinka laga iibsaday aysan furnayn maanta oo dagaal la jiraan say noo sheegeen iyo biri oo jimco ah marka iska adkaystay nagu yiraheen kidaan meesha waa laga soo qaaday waxaa la geeyey wiilashii kale oo ayagana meel jiifaan oo aad ayagana xanuunkooda xanuun aad badan haayo ayagaa laga dhex keenay marka ayaga laga keena xoogaa aniga meelkayga uu sii degdegaayay kadib gaari ambalaas oo ayaga meesha wiilaan soo saareen kadib markaasaa mid ugu dambeysaba isbitaal maa la digay wallaahi waxaa ka war helow nadba guri macnaha aad u baaba'san joogno gurigaas wax agab ah oo ma aysan oolin qof dhaawaca iska dhaafa xataa qof caafimaad qaba guri uu ku noolaan karo uma ekeen si arxan la'aana baa meesha noola dhigay wallaahi shakhsiyan aniga muddo 2 maalin ah waan baahnaa oo waxba ma cunin naxdin iyo mataqaanaa iyo cunnada oo mataqaanaa hal waqti imaanaysay waqtigaana naxdin baa la cuni waayey waa gartay dadweynihii ka waran maxaa ka dareemaysa dadka dadweynuhu horta iyagana aad bay isuga dhexyaaceen horta naag meesha ayay ku umushay oo macnaha iyadana way ku soo waxda middo dadweyne barban aad meesha ugu qalqal horta iyagoo arrintan lagu soo qasbay inay fiirsadaan dadkii saaxiibadaadii hortaada gacanta looga gooyay bal magacyadooda isee u kala horreeyeen waxaa horta ugu horreeyey ismaaciil khaliif cabdulle waxaa ku xigay cali maxamuud cali keeti hadduu joogaa cali maxamuud cali keeti anigoo ila jooga hal meelaas ku wada noolnahay yar kale oo jeylaani maxamed xaaji cabdiqaadir liiraasna uu jiraa oo asna oo cali keeti ku xigay aniga cabdiqaadir cabdulle yar kale hadda intuu ku noolyahay wallaahi kulley ma sheegi karo meel uu noolyahay waa uu la kala tegay xaalad macnaha amni xumo anagoo ay weli kasii baqnay shan iyo labaatankii bishii lixaad 2009 way dhallinyaradani qaar ka mida luxaadkoodu ay ku waayeen xukunku sharci darraa loogu dhigay kadib waxay niyeysteen in ay ka soo gudbeen marxaladdii adkeed
laakiin 15 cisho kadib ayay u noqotay maalin kale oo murugo leh oo ka sii xanuun badan tii hore markii mid ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab uu yimid gurigii lagu hayay dhalinyaradaasi isla markaana uu sheegay in xukunkii hore waxba uusan ka jirin dibna ay u marayaan rafaadkii ay soo arkeen muddo 15 maalin kadib ah ayaa niman baa noo yimiday anigaa la ii hormariyey maalintaa gacantaa la iga soo qabtay aan istaagi karin maxaa la idin sheegay marka intaa la idin waxba la iima sheegin ilaa iyo mataqaana aniga meeshii la iiga goyn lahaa la igeeyey joodar yaroo bannaanka la ii dhigay baa la iga isla meeshii haa waxaa lagu yidhi xukunka waxbaa ka dhiman xad buu yidhi xadkii waxbaa ka dhiman xad buu sheegay waxbaa ka dhiman buu yidhi xadkii wuxuuna ku dhiman yahay lugtaada gacanta ma ku daraysaa baan ku yidhi may ugu yidhi xitaa maalin kadib asagoo la yimid asagoo markaas ciidan aad u badan wato meesha qolka nooga soo galo wuxuu yidhi xadkii waxbaa ka dhiman waa in 3 farood camal la saaray 3 farood la saaray xadka waxbaa ka dhiman camal yidhi inuu gooniya looga jaro markaas iyadoo markaas lagu jaraayo meesha meesha la idinku celiyay joodariga iyo meesha marka hore la idinku gooyaa la idinku celiyay may isbuur dhexdiisa markaas isugu dhexaysa la idinka jiray ha maxaa la idin isticmaalay wallahi meesha nooga jaraayay si u kala horeysan hadana wallahi marka hore waa u dambeysay adiga علي أنا أقولي كلية إسماعيل أقولك أنا أقولك جيراني ودنبي توالا جيحي جركيجا لفطايا لسو بحيه إلا هاد waxaa ku jira lafii meeshaarta ugu rintay ee burburka lugteeda ay ku jiraan waqtiga hadda la joogo الحمد لله وفي عنها هاي intaasi kadib markii ay dhalinyaradan ka gudbeen xanuunkii labaad ee luga jarista iyo gacmo goynta waxa ay noo sheegeen in lagu qalqaaliyay inay isqarxiyaan laakiin iyadoo qorshahaas uu socdo ayaa dhalinyaradan waxaa la soo xiriiray nin saaxiibkood ahaa oo tagsiila ahaa kaasi oo u sheegay in uu badbaadinayo maanta si uu uga faa'iideysto dagaal markaasi socday ninkuu wardiyaha ahaa uu la hadlay kaar buu u diray markuu kaar uu ku hadlo ugu dirsaday guriga cidlu ahaa hal nin baan wardiyeynaya waqtigaas inta kale dagaal bay ku maqneed gaari ayuuna soo saaray naftiisa ayuu noo horay ilaa uu naga keeno dhinaca ay ka taliso dowladda Soomaaliya markii ay dhinaca dowladda tageen maxay kala kulmeen waxaan aaminsanahay inay noo baaqdeen xubno kale oo nagala jari lahaa inay mididii ka fogaaday waqtigaas agtiiga tiile ma sii joogin dhalinyaradu magaalada Muqdisho taasina waxay sabab uga dhigeen in mar kasta ay ka baqanayeen in ay ku dayacan yihiin raggii shalay xaqdarada ku gooyay luuhooda iyo gacmahooda waxayna u soo baxsadeen wadamada xad kala leh waddanka Soomaaliya si nolol cusub ay u abuuraan cali maxamuud cali oo loo yaqaano cali madoobe iyo cabduqaadir cali dilixow waxa ay hadda ku nool yihiin qol yar oo ku yaala magaalada Nairobi runtii ma haystaan nolol ku filan waxaana ay dulsaar ku yihiin dhalinyaro qaxooti ku ah waddanka Kenya okay maxaa ka shaqeyn jirtay maxaa ka shaqeyn jirtay aniga baa hore ajirnay markii hore arday wax barta ahaa markaan guursaday kadib waxbarashadii waan bixin waayey nooliga carruurteyda ayaa waxaan u raadsan jiray suuqa waxaan ahaa nin farsamo yaqaan ah oo waxyaabaha electriga sameeyo هذا قال لي حنين hadda bal noloshaada ka wada nolosheeda aniyow noorigaa joogtaa Nairobi joogo nolosheedu waa mid hadda u jeedinayo marka
waxaan heedaha ka codsanaa in wax si degdeg waxaan uga qabtay hadda Nairobi ay joogtaa noloshaada ka waran wax nolol lama haysto hadda dhalinyaro oo xaafadda ah ayaan raashinka la cunaa waqtiyada qaar inaan meelo kala duwan seexana dhacdo ayna kala wadaan way muuqataa dhibaatada ay haysato dhabta marka laga hadlo okay ilmahaadi bal ka waran iyo xaaskaadi markaa aabihii meelna kuma suuqa u sheego galayay meelna kuma sheego ilmahaadi iyo xaaskeyga ilaa iyo hadda maxaa sabab waxaan ka badin lahay noloshaydii dadyow aan arka ayaa ii sheega waqtiyada qaar goormay kugu wardambeysay waxaa iigu wardambeysay habeenkii anigoo wiilkayga la dheedheelaya liiga soo waday labada wiil waxay isku barteen xabsiga iyo noloshii adkeed oo ay la kulmeen ilaahay iminkana waa saaxiibo nolosha adag ee isku noolyihiin farxadda way isla qaybsadaan waxayna ii sheegeen mar dubnad ay cayaarayeen in labadooda mar kasta ay isla jiraan waxaan ka codsan lahaa adduunka inaan xornimadayda dib u helo inaan helo meelaan xornimo uga shaqaysan karo inaan helo carruurtaydii nololan ku baadi gooban karo inaan helo caafimaad hal mar aan ka fogaado cabsida idaashatay waqti walba iyo saacad walba inaan ka dhex baxa dadka igu caayo mar walba ama igula tiigsado curyaannimada weliba ii sheegay in la jarjaray waqti walba si aan naxdin lahayn waxaan jecelaha ummad bini'aadanimo leh inuu ku dhex noolaado nimo u shaqaysan karo nimo wax u baran karo ya taas sida lagu yeelana way fududahay ya waxaa fududayn karaa isla saaxiib adduunyada bini'aadanimada ay ku dambaysaa fududayn karta hadda maxaa ka codsanaysaa hay-adaha iyo arrimaha oo bulshada ka shaqeeyo maxaa ka codsan lahayd dartaa inaan arkaan jeclaan lahaa marka hore kadib aan codsiga baxsan lahaa ka tagta saaxiib ka tago in waxaan jecelaha maaragtay aan helo meelaan xor والله أنا أسيق مدام أقول إسكول جرين لكن مال أسيقه مسكول لود ده يعني أركي وعلى إيش شيء نيك سلوكها كحير أسيقنا متقارنا إن ومتقارنا دلني يرد على الدباتين دون وكميدي هاي مركي دمر إسكومال بين متقارنا موضوع الشيء إن الدباتين هاي اللي إن جعمين من إسناف فجر الدوران إلا مركي إلا هذا ضد صاحبات ها نرش عن قريب سنة أسيل أنت اسمه جيف طبعا كلامها